ilmaha yari wuxuu u baahan yahay weelana cayaar ma yari ma awoodi karo waqti dheer inuu fadhiyo sasi daraadeed wasaaradda waxbarashada iyo dhulka tacliinta lagu barto ilmaha yar every hour ama markuu xiisad qaataba birrif yar baa la siiyaa macalinka loo bedela waxaan oo dhan wax weeyaan ilmaha fadhiyi karin intaan in ka badan 40 daqiiqo ka yar nus saac baa laga dhigaa xisaska carruurta ilaa 40 daqiiqo qofku markuu weyn yahay energy-ga kaydin karaa jaacada marka tagta lecture 2 saacadood aad dhageysanaysaa waxa laga yaabaa in 2 saacadood 3 saacadood fadhideen laakiin ina yar ma fadhiyo karo hadaa inta ina yar soo ka haysato tiraa ag fadhi ma fadhiyo karayo kan guji ka riix ka xaga u dhaqaaq soo way energy-ga ma kaydin karo biologically baan suurta galahay ilmaha yar inta baaja loo fadhiisay 2 saacadood hor fadhiya caafimaadkiisa dishay indhaha wax noqonaya qaabkan uu fadhiyo muruqyadiisa iyo masaliskiisa wax noqonaya totally waa destroy garaynaysa waxa ka fiican ciyaarta meesha obinka aad u saarto tan uu boodboodaya cararaya isagu kubadda ciyaar hadduu isagu kubadda ciyaaro isaga jirkiisa dhismaya laakiin kuwa ciyaaraha hadduu daawado muxuu helayaa TV inta tarfarsataa Manchester ba ciyaaraysa daawo Manchester daawashadeeda waxba laga ma helo adoo ciyaara wax laga helaa adoo haddaad ciyaarto caafimaad baad soo qaadaysaa jirkaagii waa dididaysaa exercise baad samaysay waad kala baxaysa laakiin haddaad maanta oo dhan TV hor fadhido waxba ka heli maysid ilmaha la mid ah ilmuhu ciyaar kama maarmo ولذلك النبي إسرائيل أما النبي يعقوب markii Yusuf ay inamadii kale ay ka cawdeen kala baxayeen waxa laga gala baxay wuxuu ahaa maxay arsilhu macana gadan yarta ويلعب bay ku ilaahay بريهنا لا سو عياره انا لا سو عيارادي waa aqbalay uu siiyay waxay dhahdeen wuxuu og yahay nabigu inay ciyaarto ilmaha nodvandi u tahay inay u tahay necessary laga ma maarmaan inay u tahay ilmu ciyaarto ilma ma oran kartid shaakilka inay haysto waxa kamida guriyo yar yar baynu soo degnay guriyo yar markii la soo degay halkan koobab quraarada baa la dhigtay halkan kabadho muraayada baa la dhigtay halkan sirra la dhigtay ilma waxa la leeyahay ha taaban halka ha taaban kana taaban xagu qabtaa deewayga dabad wax walba marka la ilaaha taaban in meel la fariisiyo maxbuus ma noqon karo melihin gaadan balaadan ama meel ku ciyaaro uma diyaartid adigu inaad ka hayso ama islaantu ay ka hayso dabada u saarto ay meel ku soo ciyaaraan tagaan guriga in hadaad ku hor joogto wax walbana tiraadaha taaban waa maxbuusnimadana ma soconayso ilmuhu waa qof bini aadama oo aan energy badan kaydin karin waxaanu cunayo waa inuu ciyaara exercise sameeyo jirkiisu kala baxay si koritaankiisu ku soconaya normalitygiisu waa sida tan fadhigu normality ilma yar uma aha haddii marka inta meel lagu xidho la yidhaahdo normal oo waa inaad xagga dhataaba halkaa fadhi waxaan macquul ahayn baad wax ku tarbiyeynaysaa waa inaad aqbashaa ilmuhu inuu ciyaari karo socon karo ilmaha ciyaartooda xad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad dadka tukinaya imaama ayaa labadii yararay oo awowga oo ahaa mid ka mid ah cali iyo faatuma ay dhaleen mid ka mid ah baa masaajidka soo galay iyadoo la sujuudsan yahay waxba loogeyn buu intuu soo dhex maray meeshii ayuu nabiga luqunta ka fuulay nabigoo sujuudsan ayuu dusha ka fuulay nabigu calayhi salaatu wasalaam sujuudii buu ku dheeraaday kii yarana waa iskaga dul cayaaraya saxaabadiina waa sujuudsan saxaabadii way yaabeen markaa war nabiga miyuu dhintay maxaa dhacay maxaa dib masaajidku inta la sujuudo imaamku soo toosi waayo ka waran imaamkiina mid yar baa dusha ka fuushan oo dushiisa ku cayaaraya wuu iska sujuudsanaa nabigu kii yaraba ciyaartiisii dhamaystay waa iska tegay kadib buu nabigu sujuudi ka kacay saxaabadiina ka kacay waxa la yidhi rasuulkiisa maxaa dhacay waxaanu sir nabiga ma nafta ka baxa maxaa ku dhacay baan isweydiin wuxuu nabigu yidhi in ibni irtahalani inankaygi yaraba ay kooraystay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fakarihtu an ucjilahu xataa yaqdiya xaajata waxaan necbaystay buu nabigu yidhi inaan dedejiyo intuu dantiisa ka dhamaysanayo adigoo tukanaya hadduu ku fulo maxaad yeeli lahayd isaga daaya islaanta dili lahayd bal waxaa soo daynaysa markaanu tukanayna inanka soo daynaysa oran lahayd nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo dad tukinaya oo imaamaha masaajid jooga ayuu luqunta ka fuulay markaasuu fuushanaa ilaa iyo intii uu dantiisa ka dhamaysanayay maxay tani tilmaamaysaa muxuu nabigu qadarinaya calayhi salaatu wasalaam ilmuhu inuu ciyaartiisa uga baahaya deetana uu iska daayay isagoo tukanaya intuu ku dul cayaaray markuu ciyaartiisa dhamaystay inuu iska tago